munaasibadan oo ahayd mid loo soo agaasimay si ballaaran laguna qabtay magaalada madaxda waddanka Sweden ee Stockholm ayaa ujeedadeeda ugu weyn waxay ahayd soo dhaweyn maamuusid loo sameeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo maayirka golaha deegaanka ee magaalada Gabiley waxaana barbar socday oo aan ka marnayn isxoog wareysi u dhaxeeyay labadaasi mas'uul ee dalkii hooyo ka yimi iyo jaaliyadaha ku kala nool gobolada iyo degmooyinka waddanka Sweden una dhashay Jamhuuriyadda Somaliland waxaana ugu horreynba xafladaasi ka hadlay dadkii soo qabanqaabiyay oo isugu jiray aqoon-yahan waxgarad odayaal haween dhalinyaro siyaasiyiin iyo weliba dad kale waxaana ay ka warrameen ujeedada xafladaasi oo ay ku sheegeen inay tahay soo dhaweyn iyo maamuusid ay ku soo dhaweynayaan dalka Sweden labadaasi mas'uul ku soo dhawow dadkaagii ku soo dhawow ummadaadii aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa waxa kale oo aan halkan runtii aan iyagana aad uga mahad celinayaa dhammaan madaxda sharafta leh wasiir ku-xigeenka dhammaantood waxaan leeyahay soo dhawaada anagu waxaan nahay haddaan nahay haweenka reer Somaliland oo isku duuban amca furan qalbi furan anagoo isku duuban ayaanu soo dhaweynteedu tahay aanan marna ka daalin mas'uuliyiin ku hadlaya magaca xisbiyada u cidiyo kulmiye oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen sida ay muhiimka u tahay isku duubnida shacabka Somaliland meel ay joogaanba waxa weeyaan anagu horta xisbiga u cid baan nahay haddaan nahay waxa weeyaan doorashadii waanu soo marnay dhowr goorna waanu soo marnay taayadii way noqon weyday haddana waxa weeyaan taaridoonna waxa weeyaan Somaliland oo mid ah oo horumar gaadha waxaan leeyahay xisbiyadu dadka xamideeyaan hay soo dhaweeyaan dadku ay soo dhawaado unity-geenu ha muuqdo aan meel ka wada xadhig jiidno dawladda maanta timid barwaaqada ay la kulantay iyadana inay nooga dhigo tii wixii aynu u diranay iyada oo aan waxba hakiranayn inta kari karta fuliso waana ku kalsoonay muuse iyo tiimka la shaqeeya inay fulinayaan waxaan leeyahay halkan safiir baynu ka wada nahay dirjiryaal baynu wada nahay dalka inaga dad iyo u magaranaysa inagayna eeganayaan kuwa dibaddu inaga aqoon ugu tumayaan inaga adduun ugu tumayaan gudoomiyaha dalada guud ee jaaliyada Somaliland ee waddanka Sweden Mustafa Cabdi Ismaaciil oo halkaasi ka hadlay ayaa yiri 14 bishan ayaan haduu ilaahdo aan ku sameyn doonaa baarlamaanka hortiisa meeshan la yiraahdo mintoriadka taas oo aan doonayno inaanu ismuujino qadiyadeena runtii aynu muujino waxaana noqonaysaa barnaamij saacaduna waxa weeye 12 maayirka golaha deegaanka ee magaalada Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa ka mahad celiyay xafladda loo sameeyay ee lagu soo dhaweynayo aad iyo aad waxaan ka mahad celinayaa sidii qiimaha lahayd maalintii aanu dalka nimi ilaa maanta aad noo soo dhaweysay waa milgo weyn waa qiimo weyn waa sharaf waxaan moodayay in Somaliland uu joogay Gabiley marnaba ma aan dareemin cilmo annagoo dareensan qiimaha waqtigu idinku joogo halkan marka la joogo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland mudane Liibaan Yuusuf oo halkaasi ka hadlay ayaa shacabka Somaliland ee degan dalka Sweden ku dhiirigeliyay inay isku duubnaadaan meelna uga soo wada jeedaan qarannimada Somaliland waxay Somaliland halka ku soo gaadhay oo dawlad iskeed u taagan oo xuduudaheeda maamusha oo shaqaalaheeda iyo ciidamadeeda iyo amnigeeda iyo dawladnimadeeda maamusha ay ku noqotay waxa kamid ah dhaqaalaha ay bixiyaan qurbo joogto kaalmahaas oo dhan bay waddanka kaga jireen marxaladihii la soo dhaafay kaalmahaas ay ka qaateen maanta Somaliland marxalad ka duwan marxaladahaas ay maraysaa waddankii waa dhismay waa amni dawlad xoog ah ka jirta kala dambeyn baa jirta maanta waxaynu u baahannahay laba arrimood oo ah horumar iyo ictiraaf maanta waxa loo baahan yahay kaalintii aad ku lahaydeen in aad qaadataan Ahmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka Somaliland magaalada madaxda waddanka Sweden ee Stockholm.